السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد الصومالية دون ملك ستوي جوكتوان سلامي خاصة رير بنتلاند iyo galmudugba waxaan rabaa inaan halka kan arrin yar oo dhacday arrin yar ma ahna dhacdo fool xun oo sharaf dhinaceeda u leh dhinaca galmudug iyo puntland laakiin sharaf darro u ah ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka oo aan u qabinba inay dowladda federaal tahay oo la ixtiraamay ayaan waxa aan ka xumahay mowqifkiisa cayaalnimada ee cayaal suuqnimada run ahaantii oon u qalmin labada dowlad goboleed midna iyo dadka sharafay waxaa kaleeto oo aan dhegaystay labada dowlad goboleed reactionkoodii waxaan kaloon dhegaystay caasho geelle oo qof aad loo ixtiraamo oo puntland iyo soomaaliyaba laga ixtiraamo ah laakiin aan u malaynayo maanta ka bacdi in meel laga ixtiraamaya aynan jirin sababtoo ah in ay mowqifka ka istaagto ama ka hadasho ama ay iyadu dhex gasho arrimahaas horta uma qumanayn xataa hoos uga hadasho in ay publicly cajalad u soo dhigto ay leedahay anigaa joogay waxaa laiga weydiiyo horta run ahaantii waa wax aad foolxumo u ah waxa weeye caasho puntlandina saas waxba ugu samayn maysid oo xumaan uma imaanayso adiga unbaa waxaad iskaga ciyaartay cisadii iyo sharaftii lagu hayay mowqifkaagana muujiyey oo jago ka raba xasan cali khayre xasan waa la yaqaanaa waa cunug xun oo aan akhlaaq lahayn dadkana sharfin run ahaantii una qalmin booska ra'iisul wasaarenimada in loo dhiibo hase yeeshee wuu yahay marka aad baan uga xumaa inaad ku milanto mowqifkaasna aad ka qaadato oo aad dowlad goboleedkii puntland oo sharaf iyo ciise mudan iyo tii galmudug in aad ka raacdo nin aan sharaf lahayn